tan iyo markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed diyaaradiisii day lagu celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho lagana hor istaagay in uu tago magaalada Kismaayo oo diyaaradiisu ay u duusho waxa soconayay hadal hayn badan oo la xiriirta qaabka tallaabadaas ay u dhacday dhanka kale waxa soconaya kulamo joogto ah oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed gurigiisa uu kula yeelanayo madax kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka ee hadda joogta iyo madax hore oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed gurigan iga dambeeya ee hortiisa ay taagan yihiin dadku waxa wali ku shiraya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya sidoo kale dawladda federaalka ahayd xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale wasiiro senataro waxa kale oo ku jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo dad kale oo dhaqana waxaana laga arinsanayaa tallaabada ay tahay in loo qaado dhanka dawladda maadaama ay xukuumadda Soomaaliya hor istaagtay gaar ahaan wasaaradda duulista hawada sida la sheegay diyaaradii siday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la doonayay in uu ku gaaro magaalada Kismaayo oo uu ka mid yahay wufuudda kala duwan ee ka qayb galaysay shirkii ama caleema saarka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe Jubbaland oo dhankeeda war uu ka soo baxay waxa ay sheegeen in aysan soo caga dhigan karin garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo diyaaradii ka soo tagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed kulamada gurigan iga dambeeya ka soconaya wixii ka soo kordha adiga ayaa ugu horeeyay cid daawata waxaan ahay Cali Aadan Muumin oo kala soo hadlaya guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed